guud ahaan deegaamo ka tirsan Soomaaliland gaar ahaan gobolkan aynu joogno gobolka Togdheer waxa ayaamihii ugu dambeeyay ka daayay roobabkaas oo la soo sheegayay in qaar ka mid ah ay geysteen khasaare magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa ka mid ah meelihii ay roobabkaasi ka da'een ilaa iyo shalay ilaa iyo hadda roobabkii ka bilaabmay maalintii shalay may kala go'ay haddaba maamulka gobolka Togdheer oo wehelinayo kan degmada Burco iyo taliska qaybta booliska gobolka Togdheer ayaa si wada jira uga hadlay roobabka hadaladoodina waxa ka mid ah ilaahay rabbil caalamiin ma fiican baa u daaday guud ahaan gobolka Togdheer taafiisa kala gedisan iyo dhammaan degmooyinka ku teedsan in gobolka Togdheer ka koobay dhammaan roobku soo haysta alxamdulillah rabbil caalamiin khasaaro sidoo roobku daayay iyo runtii sida khasaaru yahayna ismalaka ilaa imika khasaaro taaban karo oo meel laga sheegi karo ma hayno dadku waxaan ku wacyigelinaa guud ahaan foojignaan dheeraada waayo cimilada guud ee geeska maanta ku soo beegan waa cimilo ilaa arbacada laga saadaalinayo marka runtii kulay dadweyne waxaan ku dardaarayaa in foojignaan dheeraada yeeshaan oo ay haday tahay ubadka iyo haday tahay aqalada iyo haday tahay socodkaba ay yareeyaan dhammaana dadka taraagada u baxaya ee kulay dhulkii dooxeeda maraya waxaan ku wacyigelinayaa in ay ilaaliyaan socodkooda iyo adeeg kala gudubka magaalooyinka intaasaan kulay ku gubaabinayaa khasaaro muuqdo oo la sheegi karaan ma jiro ilaa saaka waanu dhex qaadinay ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu mahad celinaynaa nimcada ballaaran ee uu nasiiyay nimco kasta oo timaadaana nusqaan laga waayi maayo saaka ilaa 6 ilaa imka kormeer baanu ku jirnay magaalada waxyaheeda kala duwan ayaanu soo marnay waajibaadkiina saarnaa baanu gudanaynay annagoo eegayna dadka danyarta ama dadka maxay ahaydey meelaha dooxyada ama sida guud uu u saameeyay roobku ilaa iyo hadda ma hayno wax khasaare ah oo la hubo welina roobka uu socdaa ma hayno ilaa iyo hadda meelahaanu maraynay meelo daadada iyo wadooyinku ay xidhan yihiin way jiraan laakiin ma hayno wax khasaare oo weyn oo saacadan aanu idin sheegno waa kadis roobkani waa roob caadi ah ma hayno roob duufaan ah roobkana ku targal muu jirin laakiin waxa weeyaan iskuuladana waxa la fasaxay maanta shalay wala dhiganayay cimiloodii yani imika degdeg bay ahayd marka roob aynu ku targalnay muu hayn dadkuna guryahoodii ku sugnaayeen ilaa saaka ilaa xalay toon la soconay dadka wixii soo baxay baa iska yaraan laakiin caruurta waan la soconaa bariishada dushooda iyo meelaha goobaha ay biyuhu ay sida xarudooyinka iyo meelaha biyaha ay xoog u marayaan ciidan baa ilaalinaya biliisa haddii khasaaraha wax yar ka taabano saaka kormeerkii aanu maray halka airportka meel baa duntay aanu soo maray gidaarkii airportka meel yar oo ilaa 5 mitir meelahaas wax khasaarana intaas aanu haynaa iyo wax dee guryaha biyaha galaya mooyaane marka aad iyo aad bay u fiican tahay nimcadu 100% wax dhibaato imika ilaa imkaan ognay ma jirto dadka guryahoodii ku sugan yihiin ilaa imika guryahoodii ku sugan yihiin hadda muddo roobku soo yar qaadayo marka waan dhex qaadaynaa wala soconaa wixii xaaladii soo kordha hadba jaranjaradan aad aragtaan ee laga dhisay meesha ka agdhow biriishka magaalada Burco ayay dadweynuhu sheegayaan inay sababtay inay daadadku kor u kacaan oo halis geliso dadka ka agdhow qarka ama dhinacyada Togdheer Cabdimaalik Muuse Oldoon Samsad Burco